wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhaysa halkan idinka baaqaynaa waa Amsterdam hoyga Soomaalida holan oo aad si toos ah ugala socotaan FM-ta iyo internetka ku soo dhawaada war wixii caawa naga soo gaaray adduun weynaha shacbiyada dalkaasi Poland ayaa 4 maalmood kadib shirkii diyaaradeed ee ay ku qurwaayeen 96 qof oo ku jiro madaxweynihii dalkaasi Poland Lech Kaczynski weli baroordiiq iyo naxdin ku jira waxaanay dadka qaar reer Poland u qaadan laayihiin geerida degdega ah ee ku timi madaxweynahooga iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay tan iyo maalintii Sabtidii la soo dhaafay dadweynaha dalkaasi Poland ayaa ku soo xoomaya barxad weyn oo ku hortaala madaxtooyada dalkaasi waxaanay dhigayaan goobtaasi weli caleemo qoyan iyo ubax ay ku xusayaan sida ay uga xum yihiin geerida degdega ah ee ku timi saraakiil sare iyo madaxweynihii dalkaasi Kaczynski haweenaydiisa iyo wafdi ballaaran oo ka koobnaa ku dhawaad 100 qof oo uu hogaaminayay madaxweynaha dalkaasi Poland iyo wafdigiisa ayaa dhammaantood ka qayb galayay xaflad lagu xusayay sanad guurihii 7aad ee ka soo wareegay markii kaligii taliyihii Stalin uu xasuuqay dad maxaabiis ah oo uu soo qabtay oo u dhashay dalkaasi Poland 1940kii dadkaas oo lagu xasuuqay dhammaantood jeelashii ay ku jireen goob ku taala dalkaasi Ruushka madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Barack Obama ayaa si aad u soo dhaweeyay taageerada 46 dal oo ka soo qayb galay shirweyne lagaga hadlayay xakamaynta hubka nuclear-ka iyo sidii looga hortagi lahaa inuu hubkaasi gacanta u galo dad uu ku tilmaamay in ay yihiin qayr mas'uul oo si qalad ah u isticmaali kara shirkan oo lagu qabtay magaalada Washington ayaa si aad ah loogu gorfaynayay sidii looga hortagi lahaa in hubkaasi gacanta uu u galo kooxo ama wadano isticmaali kara hubkaasi si ay si ballaaran ugu xasuuqaan aadamaha waxaanay 46 dal ee ka soo qayb galay shirweynahan isla meel dhigeen heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid tahay iskaashi iyo wada shaqayn caalami ah sidoo kale kulan muddo gaaban socday oo ay si gaar ah u yeesheen madaxweyne Obama iyo Hu Jintao hogaamiyaha dalkaasi Shiinaha ayaa lagu soo qaaday arrinta ku saabsan cunaqabataynta ay dalalka reer galbeedku rabaan in ay ku saaraan dalkaasi Iran waxaanu hoosta ka xariiqay Hu Jintao hogaamiyaha Shiinuhu in loo baahan yahay in siyaasad dabacsan lala yimaado si Iran looga raarido in ay u hoggaansato qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay dhagay jalaq u siin weyday muddooyinkan dambe dhan kale madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in xayiraad lagu soo rogo hantida u taala wadanka Mareykanka shakhsiyaad ka tirsan ururada islaamiyiinta mayalka adag ee ka dagaalama dalka Soomaaliya waxaanu sheegay qaraarkan inuu yahay mid ka baxsan xaaladaha caadiga ah loona baahan yahay in qaraar adag laga qaato dagaal ogayaasha Soomaalida qorshahan oo diiradda lagu saarayo ugu yaraan 12 qof oo ka tirsan jabhadda mayalka adag ee lagu magacaabo Al-Shabaab ee ka dagaalanta koonfurta Soomaaliya waxaanu intaas ku daray madaxweyne Obama qaraarka dalkiisu qaatay in aanu Soomaalida kale khusaynayn ee uu yahay mid lagu curiyaaminayo ilaha dhaqaale ee dagaal ogayaasha Soomaaliya si wax looga qabto nabadda iyo deganaanshaha dalka talaabadan cunaqabataynta dhaqaale lagu saarayo maleeshiyaadka Soomaaliya ka dagaalama ayaa ku soo beegmay ballanqaadyadii dhawaanta uga yimi dawladda ku meel gaarka Soomaaliya diblomaasiyiin Mareykan ah oo sheegay inay taageeri doonaan dagaalka ay kula jirto dagaalyahanada gacan saar kale leh ururka Al-Qaacida wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay xayirayso maaliyado ay Mareykanka ku leeyihiin Bashiir Cabdilaahi Maxamed Cabdi Aw Maxamed Xasan Cabdilaahi Xasan Turki Yaasiin Cali Baynax Maxamed Cabdi Garaad Yamani Garaabi Fuaad Maxamed Khalaf Bashiir Maxamed Maxmuud Maxamed Siciid iyo Faris Maxamed Mana oo haysta isagu basaboor diblomaasi ah oo wadanka Yemen laga leeyahay waxaana shirkan Mareykanka si aad ah loogaga hadlayay ammaanka dunida gaar ahaan in aanu gacanta u gelin hubka nuclear-ku dadyowga si aad ah ummadda ugu xasuuqi kara oo laga ilaaliyo in uu gacanta u galo hubkaasi oo kale gacmaha ururada islaamiyiinta xag jirka ah
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in dagaalada iyo colaadda ka aloosan Soomaaliya aanay cid kale oo caalamka ahi xallin karayn. waxaanu intaas ku daray in Somaliland oo u gurmata walaalahooda Soomaalida ah ee koonfurta ay si dhaqso ah u xallin karto colaadda sii fidaysa ee Soomaaliya. hogaamiyaha xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee Somaliland Faysal Cali Waraabe ayaa daboolka ka qaaday in aanay dowladaha reer galbeedka iyo kuwa Afrika ee dadaalada ugu jira in ay nabad ka dhaliyaan Soomaaliya aanay xal u hayn. waxa uu intaas ku daray in wadannadaasi aanay waxba u soo wadin Muqdisho. hogaamiyaha UCID ayaa ku dhawaaqay arrintan isagoo ka hadlay hotel Kah oo ku yaala magaalada madaxda Hargeysa ee Somaliland, halkaas oo lagu marti qaaday boqor beel ka mid ah beelaha Somaliland ku dhaqan boqor Cismaan Maxamuud Nuur oo dhowaan lagu caleema saaray magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag oo haatanna socdaal ku maraya magaalada Hargeysa. madaxweynaha dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa booqasho ku tagay magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda, halkaas oo uu kulan kula yeeshay mas'uuliyiinta siyaasadeed iyo kuwa wasaaradaha gaashaandhigga ee dalalka Uganda iyo Burundi oo ay ciidamada Soomaaliya ka joogaan. waxaanay wararku intaas ku darayaan in madaxweyne Shariif Sheekh uu kala hadlay sidii dowladda ku meel gaarka Soomaaliya gacan looga siin lahaa dagaalka ay kula jirto jabhadaha mucaaradka ee ka soo horjeeda. sidoo kale madaxweyne Shariif Sheekh oo ay safarkiisa ku weheliyaan taliyayaasha ciidamada militariga iyo booliska ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay soo afjaraan tababar wadanka Uganda uga socday boqolaal askari oo dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ka tirsan oo muddo bil ah midowga Yurub ay ku tababarayeen magaalada Kampala. waxaanu madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale mari doonaa dalka Burundi isagoo weydiisan doona labada dal ee Uganda iyo Burundiba in ay xoojiyaan ciidamadooda nabad ilaalinta ee jooga haatan Muqdisho, kuwaas oo gacanta ku haya ilaalada iyo amniga garoonka diyaaradaha, dekedda iyo madaxtooyada Soomaaliyaba. maxkamadda Berbera ee gobolka Saaxil ayaa min 4 sano oo xariga ku riday 7 qof oo kalluumaysato Yemeniyiin ah oo ay maxkamaddu ku eedeysay in ay si sharci darro ah uga qaraabanayeen biyaha Somaliland. qaar ka mid ah kalluumaysatadan ayaa maxkamadda ka hor sheegay in ay fasax ka heleen nin ka mid ah saraakiisha dhinaca khayraadka badda u qaabilsan gobolka Saaxil, Cabdirasaaq Khayre. hase yeeshee Khayre ayaa gaashaanka u daruuray oo beeniyey in ay la soo xidhiidheen raggaasi isaga. waana markii ugu horreysay ee maxkamad la soo taago dad lagu eedeynayo in ay si sharci darro ah uga kalluumaysteen xeebaha Soomaalida tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii militari ee Soomaaliya 1992. halkaad warkaas kala socotaana waa radioga Soomaalida Holland oo aad si toos ah ugala socotaan Amsterdam iyo barta internetka ee ciwaankeedu yahay dalmar.org. warkaygii caawana dhegeystayaal intaas ayuu inoogu dhan yahay.